jin in la isticmaalo marka wax la daaweynayo arin qalada weeye kala caalam baynu nahay adeegsiga jinka haba ahaada mid muslim ma banaana rasuulka loo ogolaanin sallallahu alayhi wasallam waxa uu nabigu leeyahay ifriidka la yiraahdo shaydaankii jinkii xooga badnaa tafallata calay albaarih xalay buu igu soo baxsaday buu nabigu markaas ilaahay ii suura galiyo waxaan haddana doonay inaan ku xidho jirida geedka inaan ku xidho tiirarka masaajidka mid kamida si loo daawado subaxdii haddana nabi Suleymaan calayhi salaam codsigiisii baan xusuustay ilaahay uu weydiistay inuu ilaahay siiyo milki aan cid kale uga dambaynin marka nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaas uga gaabsaday marka isticmaalka jinka nabiga afkaran jiray hadii cid isticmaalaysa isaga isticmaali lahaa sida daraadeed ma banaana mid gaalana iskaba daaba marka arintani waa arin aynu oran karna ayaamahan way soo baxday qof oranaya jiman baan isticmaalayaayo dadku markay u yimaadaan oo oranaya waa lagu shaybaaray warkaagiina waa la hayaa xaafadii iskaga noqoyay magaaladii kadibna guriga furo waxa tidhaahdaa waan idin idmay soo gala dawladda islaamka ahayd baan ku soo dirayaa de madaacish baa dawladda islaamka maxay tahay daacisho gaaladu ay daba cararaan baynu maqli jirnay dawladda islaamka ee Soomaalida dhexdeeda ka dilaacday waa nooc kale weey waxaynu oran karnaa malaha jimankii iyo shayaadiintii dhulka kala jooga magaalada lagu soo xaadirinaya maba kari karnaba waana nasiib darrad ama madaxa ama aqooyahana inay qofkaas oo kale wax moodaan dadka caamadaaba la garay in mutacallimiinta kamida baan maal dhaweed iska hornimid markaas wuxuu ugu yiri inta yara xanuunsadaan masuul hebel ayaan ula yara cawday xanuunkii kolka wuxuu yiri de hebel ma ku diraa magaalo cadbade ma ku diraa halkaas aad ku soo bogsanay ninka uu sheegay waa masuul weyn marka arintaas waa arin aad iyo aad u dhib badan wasaaradda caafimaadka ilaa waxaanu dabagal ku sameeynaynaa dadka wax daaweeya waana culimada diinka la kaashadaan isaga laftiisa dabagalaan hadaan ay jimanka ka baqanayn oo fuleynimo aanay meesha jirin saadaradeed dariiqada noocaas wax loo daaweeyaa waa xaraam iyo in jin cid loo adeegsado ama sixir ha ahaado ama fal ha ahaado ama rawxaan ha ahaado waxaan baraarujin lahaa runtii iyadoo arintaas aynu maaragtay si ay dadku uga sugnaadaan aqoon qofku hadiyo jeer waqtiyadan jinka ama uu arka ama uu la hadlaa sida badan waa markuu musaabka yahay musaab waxaynu uga jeednaa marka isaga galaan ee ay dhibaan optionada ama ikhtiyaarada u soo bandhigaan waxa kamida aan ku daynay ma wada shaqaysanaa isagoo arkaya dadkeenan caadiga caafimaadka qaba ma arkayno laakiin qofku marka uu musaab yahay ee jinku ku jiro uu arki karaa saadaradeed intuu istusaaba wuxuu oranayaa rag iyo dumar mid kastaba ahaado qofka wax ku dhaceen ma wada shaqaysanaa oo ma nala shaqaysan marka de qof daciif wuxuu oranayaa ha kadibna shuruudu u qorayaa waxa yeel hadawna waxa laga yaabaa hadii shuruudii khilaafay isagaba inuu dilaba marka arinta noocaasa waynu ku dheeraanay ma banaana dadkana waa in looga digo qofka arinta ku shaqaystana waa inuu ilaahay uga toobad keenaa oo wasaaradda diinta iyo garsoorka iyo aywaaniyaan oo duwantoob waana xirciqa